KNN. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadaha kalamaaney waa heesa rabaa beriga dabaa hooska nool weli aan cidiina dami karayn weligay intaan adduunka joogay maareeye heesaya maarag war waa ku soo waxay iska daa odaga u qabane war dabka yaashiday maareeyuhu sheegay aryaadaha waxaa hore loo yiri markii bookax boolis loo qoray maxaa ciidan baahi loo qabayay taas haddii hore loo yiri waxaan hadda leenna markii cabdille maareeye loo magacaabay maxaa maamul baahi loo qabay magacaa waran leh xafiiska iiga bax wareer kalamaan intiina maanta geedka joogta waxaan idiin sheegayaa maanta wixii ka dambeeya madaxaan yeelanaye yaan lidinka bixinin geedka warnimayow anigu waa ka maqnaaye murankii kalamaan baa madaxtooye la geeyey aniga way mari weyde warwar mahaysida kalamaan maareeyaa loo magacaabay wasiirka warfaafinta waryaan xafiiska lagaa bixin war haddii madaxtooye laydin geeyeyoo maareeye laydiin soo magacaabay hadda ma kalamaan gareen baad tihiin dadkuba ha maqle dabbaa hooska nool weli aan ciidiina dami karayn war koobiga ra'iisul wasaare khayre maanta intaas ha lagu qaato oo kalamaan hadda kulmiye ma lagala wareegay war keeg ninkii dhihi jiray maday isaaq kooxdii baydhabo ka timid jinaawkay miyuu hore u raacay war maday isaaq waxaa la sheegay asagoo careys beledweyne beer kula falaya hakaba bannaanshe aan ku ogaaye maday maantana maxaa buurweyngeeyey war angoolkiina gaalkacyuu beer ka falayaa baa la yidhi horta kalamaan maxaa beeraha ku salliday baryahan dambe war ninka xilka ha u cayaarin waxaa loo magacaabay taliyaha taraafikada ee godonloba war gelinsoor dheh warnimayo waxaa la yidhi murti hore sidii lagu xuseen noqotay mahmaahiyo mudacyo afkood laga mantelay irmaan rag leeyahay mid kastana mabda'a uu sitaaba mudnaan la leh masalooyin talantaaliyo nin iyo maagiya matelkiiyo mudaca ay wadaan kooxdan kalamaane runta oo maldahan baa bulshada loogu mariyaaye madadaalaha u qaadan iyo adigu maadays madadaalaha u qaadan iyo adigu maadayse ma dhahdido warnimayo anugu waxaan la yaabanahay cabdi baaruud waa meeqa wasiir war waa wasiirka qorshaynta war waa wasiirka howlaha guud war waa wasiirka xiriirka bulshada maya waa wasiirka maaliyadda iyo maaraynta ama wasiirka xanaanada xoolaha yahay war waxaanaad kala wadaan garan maaye ninkaa digtoor kulli baan u gartay war ma haysaane madaxweyne farmaajo wuxuu saxeexay sharcigii doorashooyinka wuxuuna yidhi dalku doorashuu gelayaa awooddiina shacabkaan ku celinay war haddii awooddii uu shacabku ku celiyey muxuu qabanayaa madaxweynuhu war madaxweynuhu shacabkuu matalaa waddooyinka xihan shacabku maraaliyay ka yihiin war hadhe warkii xuseen gurmudaa daldalaysaa aryaadaha waddooyinka beriga xihanood aragteen waxay ahayd sanad guuradii kontonaad ee ciidanka asluubta soomaaliyeed war yaa kuu sheegay adiga ma kontonkiyaa joogta konton xaytaa waaba ka horreeye shub faca tukaa ka noole shub adiga naftaada faca abooraa ka noole maareeye caytama looma baahnee ka bax xafiiska cabdullow aryaadaha warkayga dhex gelinay ra'iisul wasaare khayra beriga ka warramay xafladii ciidanka asluubta walaala'aan lama noolaa kara ma yiri ra'iisul wasaaruhu war ra'iisul wasaaraha wuxuu yidhi ciidanku ugu shaqada badan waa ciidanka asluubta sababtoo ah waxaa loo keenaa qof nolosha ka dhacay waxaana la rabaa inay bulshada ku soo daraan oo damiir iyo damac u yeesho war gurmad ay ku soo dareen haddaba idinla jooga aryaadaha warkayga dhex gelinay ra'iisul wasaaruhu wuxuu yidhi gabdhihii hore waxay dhihi jireen waxaan alaabta asluubtu samaysa ahayn guri layma dhigi karo jiifna laygagama dhigi karo war ra'iisul wasaare khayre wuxuu yidhi imaam aan daahir ahayn oo weese qabani dad inuu tujiyaa ma bannaana war waayaaba ciidanka asluubta macarwo furniijarka samaysay lahaayeen war ciidanka asluubtu haddeer markii bashiir gooba joogay jiifkii xildhibaan dalxa ku aroosay baa iyagaa sameeyey war maaraaye cabdulla hadda jiif uu ku arooso asluubta ma ka helaynaa taliishu waa laga rabaa war nimanya waa asluubaad ku waalateene madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi ilaahow dhexdeenna burcad ama farmaajo iyo sumari war dee mahabaar iyo ducu iskugu keen daray war ducadaasa cabdiraxmaan cabdishakuur aamiin ma dhah war taliya ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu xilkii ka qaaday taliyuhuna wuxuu sheegay maalmo ka hor inuu iscasilay war taliyaha qaldan sababtoo ah nabadii nool ma maqli karto waa iscasilay qofkii istiqaalo dalbadana xilka qaadisay kala hormartaa war nimaya madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud culayska siyaasadda kenya waxaa keenay uu yidhi madaxda hadda joogta oo kiiska badda si qaldan u isticmaashay wuxuuna yidhi markii hore u carab laalaadiyeen midda kale wuxuu yidhi in dacwadu dib u dhacdana arrintaasaa sabab u ah war xasan sheekh wuxuu yidhi waxa madaxweynaha eletriyo digtaytarka xabiib nooga dhigay dariskeenana nugu diraya war somalilan warkama hayside
xisbiyada mucaaradka Soomaaliland maanta war culus baa ka soo baxay warkaas culayska gabooso maadiga soo xamaalay warxan maaha warkaygii dhigayso madaxweyne Muuse Biixi waa dictator waana kaligii taliya Soomaaliland wuxuu ka dhigtay dukaan asagu uu leeyahay war dukaankaas wax lagu gado ma sheegan war madaxweyne Muuse Faysal Cali Waraawi Cabdiraxmaan Cirro mahandaraabi way Soomaaliland lagama yaqaan adeer war adiga naftirkaagan war hayna Muuse Biixi wuxuu yiri ururada siyaasadda dib loo fura hadda mahaas waxa ka cad ururada Faysal iyo Cabdiraxmaan Cirro in laga gudbi doono Abdullah waxa joogtaba ma Muuse Suudiya maanta xisbi samaystaan oo keenta war madaxweyne hore Sheekh Shariif wuxuu yiri thumma wallahi miyuu ku celi waa saarayna muu yiri kafa ma dhihin kullayba war madaxda waliba teeda culimada in la xantaa waa dambi haye xanta shacabka miyaa ajira muga war madaxda balanqaadkooda beenta waa u dul qaadanaaye xanteena u dul qaataan war waa waalateena warka naga maqla xirkaha nugu xirxirin adigu wuxuu yiri Sheekh Shariif dawladnimadu afar qofood oo meel isugu tagtay waa ka weyn tahay mana fiirsan karno ayadoo booraan ku sii dhacaysa hanabin Sheekh Shariif booraan ma dhihina ceelow ku yiri war madaxda Soomaalida Kenya waxay dhaheen Soomaaliyan ku biirayna miidhan Axmed Madow waxa naga leexday ma yiraahdeen war warka naga dhaxgelinina waxay dhaheen dawladda Kenya waxay ka been sheegtay bay yiraahdeen tirada dadka Soomaalida dacwad ayaan ka gudbinaynaa ay yiraahdeen oo Kenya waa u tirsanaa miya goormayna tirsat aryaadaha dawladda Kenya waxay tiri qabaa'ilka ku nool dalka Kenya lix qabiilaa ka badan Soomaalida kuunyana ugu badanay dhaheen korkooru ha qaace wareedhaha tirakoobkaasi waa la jiifiyaana bannaan war maysiine taliyaal cusub oo booliska loo magacaabay Galmudug aye bax ka simiya Galmudug ka bilaabatay war maysiine madaxweynaha Galmudug wuxuu yiri markii la doorto miisaaniyadii waa korortay war goormay Galmudug miisaaniyadii yeelatay waayaaba war maroob lacag baa u daay miisaaniyadaas ha dambaysay madaxweynuhu wasiiradii ma magacaabay all in one way isaga qabanaya hawsha dhan war magacaawista dambaysay horta madaxweynaha mal caleema saare war ma haysaane waxa la yiri safaaradda Soomaaliya ee Suudaan madaxdeedu waa isfeereen xamarana looga yeeray war soo laabtadu waa badan tahay safiirka Cumaan xataa waa loo yeeray yaa safaaradaha waxa la ogaaday lama heshiisa inaysan joogin dhammaan tormaal la wada waco war safaaradaha waxa la ogaaday Soomaalida wadamadaas joogtay inaysan waxba u qaban ma la wada waco war safaaradaha waxa la ogaaday inay baasaboorada ka faa'iidaan ma la wada waco war safaaradaha waxa la ogaaday in jeclaysi lagu magacaabay shaqada ma wada yaqaanaan ma la wada waco war dhammaan Soomaalida dabadda joogta ma la wada waco war qurba joog xiirxiiran maxaad loogu waysaa heeb sooca kada war inta badan dhaha war dadku ma wada xumee qaara xundhaha war yaa mid kan afka buuxsaday maagteena laga kiciyo wuxuu yiri cibaadaysan indiga ku hayay daniba way igu celin ciyaarihi dahab weeye dhulkeennu mudana way iska dahnaaye in shidaalka la dooxo duruufta bulshadeena daryeel looga sameeyo dood miyaad ka qabtaan war waxaad akhriyayso doorasho ka horeysa iyo inaan ku heshiino mashruucu ku wata iyo dan gaar deyn cafinta war maareeya yaa la garaacay badiyada maareeya si fiican loo diro war yaa dastuurku waa qabyo deynta alla idinka gude fursadu ku aqoonsato dhammaan waan ku aydne radiyo abadkii jiro kulmiyelo aaya noqo idaacadda ugu fiican sanadka 2019 idaacadda kulmiye waanu mahadcelinayaa ha soo dhowaadaan idaacadda kulmiye idaacaddu waa kulmiye anigoo ku hadlaya magaca maamulka howlwadeennada iyo dhammaan shaqaalaha radio kulmiye waxaan marka ugu horraysa u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala ee fursadda noo siiyey inaannu mar kale sanadkii labaad noqonno horyaalka idaacadaha magaalada muqdisho runtii markaan soo kacayay ee aan maqlay idaacadda ugu wanaagsan idaacadaha maskaxdayda ku jirta waxaa markaa guul ah inay idii ay noqoto lafteeda aadan u faraxsana marka waxa waaye idaacadda ugu wanaagsan looguna dhegaysiga badan yahay aniguna anigu dhegaysi badanahay ninka maamulana uu yahay saaxiibkayga koowaad abwaanka weyn waa radio kulmiye aad ayaad mahadsantihi
waxaan halkan uga hambalyaynayaa idaacadda kulmiye dadaalkooda waa waxa ay 2 sano oo isxigta ay ku qaadeen kaalinta koobaad dadaalkooda inay sii wadaan ayaan rajaynayaa waan ugu hambalyaynayaa midda kale halkudhiga kulmiye waa mid caan baxay oo la yiraahdo kulmiye kulamana jirto kaamana jirto waxa kale oo ay ku caan baxeen kalamaan marka kalamaan iyo kulamana jirto kaamana jirto waa 2 halkudhig oo kulmiye u gaar ah rasmigii idaacado rugacdaagi weeye radio kulmiye si gaar ah waxaan rabaa inaan hambalyo u diro maamulka radio kulmiye oo sanadkii labaad ku guulaystay raadiyaha ugu wanaagsan 2018 qaatay 2019 ku guulaystay barnaamijya toosa iyo warartaya fiican bay kulmiye ku tabinayaan dhegeystayaashana dhegeysanaya runtii aad baan ugu mahadnaqayaa KNN oo dhan ama idaacada ha ahaato ama website ha ahaado ama ha ahaado baraha bulshada sida YouTube iyo Facebook ku xiran oo intaas oo dhan wax ku gudbino waxaan rabaa in halkan ugu mahadnaqo marka ugu horeysa horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo guushaasna halaalsiiyay marka labaad waxaan mahadnaqayaa Muqdisho Award shaydan abaalmarinta Muqdisho la yiraahdo iyo dadka Soomaaliyeed noo codeeyay runtii waxaan isleenahay dhegeystayaasha baahinta kulmiye taageera ayaa sabab u ah guushan aan gaarnay Ilaahay weyna subxaanahu wa ta'ala ka sokow barnaamijyo koobaniyo warka kiisa mudan kala socdo kulmiye